wasiirka khayraadka safiirka xarunta midowga Yurub ee Belgium ama Yurub oo dhan alfaqi wadarkiisaan dhammaan Soomaalida dhan waaye wadarkiisaan xaaladda meesha maanta aad ay u fiican tahay aan la socono meesha aan ku suganahay waa xarunta midowga Yurub ee Brussels hadduu wasiirka yahay hadduu safiirka yahay wadarkiisaan khayraadka maanta meesha yaallo waa kaaf iyo kala dheeri arrin aad loogu farxo maanta meesha Soomaaliya hiigsanaysa ama ay marayso haddii madaxda dhan ay ma aragtay saas gacanta isku qabsadaan ay muujiyaan wax mug iyo magac leh inay bahashatan ay maanta ay hashina maandeeq dib u dhalayso qof walba Soomaaliya gacanta ka qaba midnimada iyo jiritaanka ummadda Soomaaliyeed jiritaanka wax lagu gaaraa kala qof iyo qabiil waxba lagu gaaro qaran dumis waa qabyaalad qurun inta wax ka socon hal iyo laba safiirkan weydiinaya mudane cali ummadda Soomaaliyeed waxa u sheegaysaa ummadda Soomaaliyeed wax loo sheegay male meesha waxaan kalluumaysiga waa ujeedaa waxa lagu soo bandhigay kalluunka Soomaaliyeed badda Soomaaliyeed iyo kheyraadka dalka ee Soomaaliya safiirkii ka soo qayb galay iyo madax kale oo fara badan oo ganacsatada ay ka mid yihiin marka waxaan leenahay Soomaaliya ha noolaato mudane safiirna horumar lagu gaari karaa sidaan si ka daran horumar lagu gaari karaa waa in maaragtay kalluunka laga faa'iidaystaa la keenaa suuqa dibadda si ay Soomaaliya maaragtay uga baxdo lacag in ay dibadda ka doonato oo maaragtay kaalmo ay raadsan lahayd kheyraadkeena in laga faa'iidaysto kaas wuxuu ahay safiirka u qaybsan arrimaha Soomaaliya xarunta midowga Yurub علي فقي waxaan dib u sii gali doonaa wasiirka ma sha Allah mudane wasiir soo dhaw waa maasanta walaal mudane wasiir maanta waxaan kula kulmay kulan aad iigu weyn waay mar haddaan wasiirkaygii anoo qurbajooga aan la kulmay si fudud kula kulmay maadaama dalka joogtay ay wada tahay kulankaaga kulankaygana kul aad macnaha ma taariikhda ugu qoray oo yahay maxaa ummadda Soomaaliyeed faraysaa ay ku dhageysanayso bismillaahir rahmaanir rahiim marka ugu horeysa waxaan salaamayaa ummadda Soomaaliyeed وينقد دعوتنا channel كان نلقى جوجان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام كبعد عن هذا فرح سنة هاي إن مركي ورئيسي دولة الصومالية كسر قيم وشو عروض وين ولوقع كسنة كسر مقالة براسلز ودن كبلجيم وحرمها عنتنا بدل لقاها لكلوميسي جاي عنتنا بدل مركا وفد وين بعد كسر قيم بلاي وفد يقول ريها ميل قونية إليهين والله فري عروض اللوجات اللي kalluumaysatada Soomaaliyeed marka waxaan u nimay halkan sidii aan u dhiirigelin lahayn dadkii raba inay maal gashadaan sidii loo kalluumaysan lahaa Soomaaliya khaasatan dadka ganacsatada oo raba shirkado kale in ay wada galaan maaragtay shuraaka wada galaan si ay kalluunka Soomaaliya oo kale maaragtay u dhoofin lahaayeen meerka loo geyn lahaa marka mudane wasiir aan ka dhaxgalo dadka Soomaaliyeed ee kalluumaysatada ee dalka jooga waxay la yihiin gaadiidkii hadday noqoto shabaqi hadday yihiin doomiki hadday yihiin amniga intaba maxaad ka qabanaysaa maadaama wasiirkii dalkii dadka loo dhaariyaa tahay runtii horta arrinta amniga saa loo socotay waa arrin guud oo xukuumadda oo dhan ay mas'uuliyad ka saaran tahay waddanka saa loo socotay meelaha qaarkood amnigu waa maaragtay waa fiican yahay meelaha qaarkoodna weli waxaa loo baahan yahay xukuumadda hawl inay ka qabato marka meelaha amnigu daciif ka yahay insha Allah waxaan rajaynaynaa qorshay dawladdu leedahay ku saabsan sidii amniga loo xoojin lahaa taasi waa amniga guud laakiin haddaan ka u soo noqdo su'aashaadii waxaa la rabaa haddii eebo gacan laga siiyo dadka iskaashatada kalluumaysiga waxyaabaha Soomaaliya jooga geeska gees min Ras Kamboni ilaa maaragtay Ras Caseer marka dawladdu qorshe bay keeni doontaa insha Allah ay soo bandhigi doonto oo waxay ka caawin doonto dadka danyarta oo iskaashatada oo kalluumaysiga waxbaan ka qaban doonaa dadkii kaloo laftooda san hore kugu sheegay ganacsiga ku jira laftooda waa inaan garab siinaa doonana oo sidii ay shirkado kale oo ajnabi ay wada shaqeyn lahaayeen oo cilmi iyo khibrad uga baran lahaayeen waxaa loo baahan yahay warshado in waddankii laga dhiso oo kuwa kalluunka ah Soomaaliya sanadkii hadda waxa ay kalluunka ku soo garataa bannaanka 17 milyan iyo nus oo kalluuna waddanka la soo geliya oo tuna marka haddii aan hadda warshadaheena ayna ku dhisno
lacagtaas waa lacag waddanka maaragtay gudihiisa joogtay noqonaysaa oo dad kalena shaqo loogu abuuri karo marka insha allah waa dadaalanaa waana wadanaa hawsha iyada ma jiraan maadaama aad bandhigan aan la keenay aad soo iibgeyseen badda Soomaaliya wixii ku jira kheyraadaha dawladda idinka soo xiriiray raba dalka inaad ku soo dhawaysid ma jiraan hal iyo labo hal iyo labo ma ujeedadana waa waxa dad badan oo wixii xaflad carwadan ka soo qayb galay cid kasta ha noqoto dunida ah in qof kasta u yimaada loogu talagalay ujeedada meesha aan u nimi waa marka dadkii rabay inay dad badan baa yihiin oo rabay inay kalluumaysiga Soomaaliya daneynayaan dadkaas oo dhan way arkeen waana yimaadeen arrimihii hadday jireen wax khaseeya dawladda way nagala hadleen wixii kalena ganacsatada aad u jeedid halkan joogto Soomaaliya waa dadka annaka dadka rabna dawladdu shaqo ma abuurto shaqo waxa abuura dadka businesska abuura private sector ka abuura haddaan annaku dadka Soomaaliyeed u fududeeyno ganacsatadeeda in ay iyagu guul gaaraan Soomaaliya dhanna guul waa gaadhay marka annagu saan business people-ka iyo dadka fisherman-ka ama noqdo kuwa dan yara ama kuwa lacag badan leh iyagoo dhan baan annagu rabnaa inaan hore ugu maaragtay horumar gaarsiino taa weeyaan ujeedada saan uu gaari karo horumarka marka waxaa leedahay amnigii haddaan dhisno haddii aan dhaqaali kubcin inta waa la gaari karaa laakiin waxaan u malaysaa inaan ku noqonayno su'aashii sarkalkii waa ku jawaabay waxaan ku yidhi meelo badan waddanka amni ka jira baa jiro fiican yahay meelaha weylaha macadi meeluhu daciifka ka yahay amnigana waa la xoojin doonaa qorshe xukuumaddu ay leedahay baa jirta waa kuu sheegay aad baad u maastaa mudan wasiir kulankaaga kun aad u tixgelinay ummadana tixgelinayso anina si qaasi macnaha ana hami u siinayo maadaama wasiir Soomaaliyeed igu horeeyay aan la kulmo in dawladii horena aan u yeelan macnaha ilaahay oo san asiibin aad baad u maastaa mudan wasiir